markuu tahriibo uu Liibiya tago $15,000 baa laga daba diraa oo lagaga sii daayo halkan isagoo jooga ma la siiyo waxay tiraa maamul xumo maal guran ka daran haddaad geela hayso ood ku caanalaadahay iyo haddaanan lahayd ood caanalaadahay caanalaani waa caanalaan kama kala duwana irbadaloolkeed fursad ka yar haddii aad haysato waa inaad isku daydaa sidaad uga faa'iidaysan lahayd aqoontu amba waa inay akhlaaqiyan ku korisaa amba waa inay xirfad ahaan ku korisaa wax manaafacaado waa inay ummadda u soo kordhisaa laakiin waa inaad sara u hayso uunoo shahaadaan wataaye anoo PhD baan bilaa shaqo ahay ta adigaba kuu abuuri weydayay cid wax u abuuri adigay meel ku geyn weydayay cid kale baahideedan babaylahadeed wax u xalin doonto marka we have to think nacminayno sidaa u fikirno ayaa loo baahan yahay ta kale tahriibka dadkii dad baa maalin baa lagu yidhi dhalinyartii waxba ma hayso oo way tahriibaysaa tanay tegaysaa waxa la yiraahdo wax la'aan baa dhulkii ka jirto waxaan ku yidhi ma runtan baa laakiin ma wax la'aan baa jirta markuu tahriibo uu Liibiya tago $15,000 baa laga daba diraa oo lagaga sii daayo halkan isagoo jooga ma la siiyo ma reality naam xaqiiqaynu ka wada hadalada walaalayaal halkee laga keenay sidee lagu keenay mar haddii la diri karaba isagoo halkan jooga in la siiyo sidee loo kari waayay weeye su'aashaan anigu qabo shakhsiyan waana la igu dudi karaa waana la igu cadhoon karaa waana la igu caayi karaa xor baa loo yahay laakiin waxay tiraa maamul xumo maal guran ka daran haddaad geela hayso ood ku caanalaadahay iyo haddaanan lahayd ood caanalaadahay caanalaani waa caanalaan kama kala duwana caanalaani waa caanalaan turgumilow marka we have to think nacam inaynu ka faa'iidaysano oo aynu taa baharkan ta kale maamulka innaga dhibaatadayna haysatay waxa weeye dunyadeeni waxaynu haysanay amba dhulahaado amba biyahaado amba xoolahaado amba whatever it is dunyadeediinina dad la'aan bay u dhimanaysaa dadkeenniina dunya la'aan buu u dhimanaya that is the difference